haddii ay tahay marka kugu horeysa aadna soo booqato YouTube-keena subscribe like share adiga waxba kaama dhibayso anagana waxay noo tahay dhiirigelin ay noo tahay haddii aad ka mid tahay asxaabta hore nala joogay nala socdayna aad baad ugu mahadsan tahay la joogaaga maanta waxaan rabaa in aan idinka dabageeyo team xubbi magaalada Kismaayo maxay yihiin maxayna qabtaan shaxdaan aan rabaa inaan ka dabageeyo dadka qaar way fahansan yihiin laakiin dadka aan fahansanin ayaan rabaa hawshan in aan ka dabageeyo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay iska dhaadhiciyaan dadka intay meel isugu imaadaan 90ka maxay la ninik alla jirarto niika badana niikadan ma ahan mid dhaqan xumo ma ahan waa mid aroos farxadeed dadka qaar waad ogtiin markay is guursanayaan hotel ay kireystaan qamri heesa Americana la darta laakiin may anaga noocaan aan naqaana siday ahaato team xubbi waa dad family ah marka aan ku leeyahay family waaye ma ahan dad wada dhashay dad walaalaha ma ahan laakiin waa dad oo isku imaaday iskuna bahaystay ilmahoodii si farxad kalsooni ay ku dheehan tahay inay u wada aroosiyaan qof waxaa jiro shakhsiyan aan awoodin canugiisa in uu aroosiyo waa dad dan yar ah lacag isku dardarsadaan oo qaaraan ah marba qofkii aroosa la siiyaa goobta waa loo camiraa waa la isku imaadaa calamadan quruxda badan dhar isku eg ayaa la soo qaataa maamooyinka u jeedid calamada wato quruxda badan waa maamooyin u taagan har iyo habeen ilmahoodii inay u guuriyaan si farxad leh waa maamooyin isku bahaystay farxadda caruurtoodii balse ma ahan dad intay meel iskugu imaadaan iska niikiyo iska boodbooda oo ku kala taga ma ahan waa dad isbahaystay iskuna bahaystay farxadda caruurtooda isku bahaystay lacag isku darsadaan oo qaaraan ah lacagahaas sida aan horaan idinku sheegayba marba qof la siiyaa qofkii aroos ah ayaa lagu caabiyaa in la caabiyo aad bay u wanaagsan tahay guurka geerida iyo xanuunka intaas baa la isku caabiyaa soo ma ahan siday ahaataba ulajeedada waxay tahay aan is caabino wax kale ma ahan like-ta share-ta ana xitaa caawinaad ay ii tahay marka maamooyinkana maamooyinkeeni waaye maasha Allah waxaan leeyahay farxad ku noolaada sida quruxda badan aad isku bahaysateen caruurtiina in aad u aroosisaan waa mid ku dayasho mudan waaye bulshada waxay doonaan ha idinka sheegaan ama waxay doonaan ha idinka aaminaan balse aan waxaan aaminsanahay ama asxaabtida qaar ka mid ay aaminsan yihiin inaad tihiin maamooyin u taagan caruurtoodii farxad inay ku guuriyaan muuqaalka xaqiisa la siiyo like share comment anin xitaa caawinaada ay tahay